vocabulary about politics. Vocabulary saan hore usoo sheegnay waa ereyo cusub in badan ayaan soo marnay. Vocabulary saan hore usoo sheegnay waa ereyo cusub about ku saabsan politics siyaasadda. Cashirkan wuxuu noqonayaa cashirkii toddobaad ayuu noqonayaa cashirka toddobaad, laakiin cashir oo siyaasadda aan kaga hadlayno waxaan u malayaa cashirkan cashirka labaad inuu noqon doono ayaan u malayaa. Laakiin vocabulary dhankiisa marka aadna ereyo cusub aan ku baranayna cashirkan wuxuu noqonayaa cashirka toddobaad ayuu noqonayaa. Okay, number 1 waxaa inoogu xusan constituency. Waxaa inoogu xusan constituency waxay noqonaysaa deegaan doorasho ayay noqonaysaa. Deegaan doorasho ayay noqonaysaa. Constituency markaan fiirino waxay noqonaysaa deegaan doorasho, ama luqadda Englishka waxay ku dhahaan an area that chooses a representative in an election. Waa meel oo dooranayso qof oo ayada metelayo markii doorashada la sameynayo. Waa meel yar adi waxay dooranayaan qof oo metelayo doorashadii. Marka waa meel deegaan oo doorasho ah ayay noqonaysaa. Soomaaliga saxda waa deegaan doorasho. Okay, waxaa dhihi kartaa our constituency is small. Aa dhihi kartaa deegaankeena doorashada waa uu yaryahay. Our constituency is small. Deegaankeena doorashada waa uu yaryahay. Number 2 waxay noogu xusan election. Election waxay noqonaysaa doorasho. Election waxay noqonaysaa doorasho ayay noqonaysaa. Example haddaan usoo qaadano kaleeto waxaan dhihi karnaa the election is on next week. The election is on next week. Doorashada waa isbuuca soo socda. Doorashada waa isbuuca soo socda. Number 3 waxay noqonaysaa vote ay noqonaysaa. Number 3 vote. Vote waxay noqonaysaa codayn ay noqon kartaa ama cod ay noqon kartaa. Haddii hadda aan ku dhaho kaleeto you have to vote, haddaan ku dhaho kaleeto waa inaa codaysaa ay noqonaysaa. Marka vote codayn noqon kartaa. Haye vote kelixna waxay noqon kartaa, codkii kelixna way noqon kartaa. Vote codayna noqon kartaa, codkiina way noqon kartaa. Labaduba way noqon kartaa. So waxaa dhihi kartaa oo kaleeto my vote is lost. Aa dhihi kartaa codkayga wuu lumo oo kaleeto. My vote is lost. Codkayga wuu dhumo oo kaleeto ayaa dhihi kartaa. So ama waxaa dhihi kartaa you have to vote. Waa inaa codaysaa. You have to vote. Waa inaa codaysaa for the president, madaxweynaha. You have to vote for the president. Madaxweynaha waa inaa codaysaa dhihi kartaa oo kaleeto. Okay, number 4 waxaa inoogu xusan voter ayaa inoogu xusan. Voter waxay noqonaysaa codeeye, qof codeynaya yacni. Qof oo codeynaya ay noqon kartaa. So qof oo doorasho intuu aaday codeynaya waxay noqon kartaa voter ayay noqon kartaa. Waxaa dhihi kartaa I am a voter. Waxaa dhihi kartaa ani codeeye ayaan ahay. I was number 1 aa dhihi kartaa. Waxaana qofka ugu horeeyay when it comes to voters markay imaato codeeyayaasha aa dhihi kartaa. When it comes to voters markay imaato codeeyayaasha aniga waxaan ahaa number 1. Okay, number 5 baan aadna. Number 5 waxaa inoogu xusan chairman ayaa inoogu xusan. Chairman waxay noqonaysaa guddoomiye. Chairman guddoomiye. Marka shir la qabanayo qofka oo shir guddoominaya ayaa maxaa la dhahaa chairman ayaa la dhahaa. Waa ninka madaxa u ah ama kaleeto ee hoggaanka u hayo group dad meel iskugu imaadeen oo group ah ama shir qabsanayo kaleeto meel iskugu imaadeen ayaa ninka oo hoggaanka u hayo maxaa la dhahaa chairman ayaa la dhahaa. Waa guddoomiyaha ayaa dhihi kartaa. So waxaa dhihi kartaa our chairman is not around today. Maanta shir guddoomiyaheena ma joogo ama guddoomiyaheena maanta ma joogo. Our chairman is not around today aa dhihi kartaa. Maanta guddoomiyaheena ma joogo. Number 6 waxaa inoogu xusan secretary waxay noqonaysaa xog haye, qofka oo xogta aruuriyo marka shir wax la qabanayo ama kaleeto qof oo xafiis kuu fadhiyo kaleeto marka adi maqan tahay wax kuusii qorqorayo kaleeto oo gacan yaro ku oo kaleeto assistant secretary ayaa la dhahaa. Ama marka shirka la qabanayo kaleeto wax ay jiraan kaleeto qof maxaa jira secretary laga dhigaayo oo wax qorqor la dhahayo. Wax buu qorqori, xogta buu qori, wax buu sameeyay, wixii akhbaaraad information oo la qabanayo kulli wuu qori. Waa secretary, waa xog haye. Tusaale oo kaleeto waxaa dhihi kartaa she is our new secretary. Iyadu waa xog hayaheena cusub. She is our new secretary. Iyadu waa xog hayaheena cusub. Okay, number 7 waxaa inoogu xusan treasurer ayaa inoogu xusan. Treasurer waxaan leenahay waa qofka maaliyad ilaaliyaha, qofka lacagta oo kaleeto markii oo group ama dad ay kulmayaan oo kaleeto ama wax ay sameysanayaan oo kaleeto qofka lacagta hayo kaleeto. Waa qof oo lacagta oo groupkaas oo kaleeto asaga loogu imaanayo lagula xisaabtamayo wax kasta oo lagu sameeyo. So treasurer ayaa la dhahaa. Treasurer waa ninka lacagta ilaalinayo ama maaliyadda ilaalinayo. Maaliyad maxaa waaye hantidoo kaleeto ninka ilaalinayo ayaa maxaa la dhahaa treasurer ayaa la dhahaa. So waxaa dhihi kartaa Ahmed is our treasurer. Ahmed waa lacag ilaaliyaheena, maaliyad ilaaliyaheena ama hanti ilaaliyaheena ayuu yahay ayaa dhihi kartaa. Okay,
number 8 maxaa inoogu xusan number 8 waxaa ku xusan cabinet ayaa ku xusan cabinet maxay noqonaysaa cabinet waa golaha wasiirada dowladda maxay leedahay wasiiro fara badan oo mid meel ka soo jeedo wasiir hebel wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha wasiirka tamarta wasiirka macdinta wasiirka beeraha wasiirka kalluumeysiga waxaasoo kulli waxay iskugu imaan karaan cabinet waxa la iskugu imaan karaan because waxa waaye government wasiirada dowladda ay noqonayaan waxa la dhahayo golaha wasiirada ama cabinet wuxuu noqonayaa golaha wasiirada waxaa dhihi kartaa the cabinet is not working well these days golaha wasiirada maalmaha si fiican uma shaqeynayaan the cabinet is not working well these days aa dhihi kartaa golaha wasiirada maalmahan si fiican uma shaqeynayaan okay number 9 maxaa inoogu xusan committee waxaan leenahay ereygan committee waxaa weeyaan guddi guddi waa dad la doortay oo khaas ah oo guddi ah waxay noqonayaan committee oo arrin markii loo dooranayo kale arrin yaraa jirto dad khaas ah loo dooran waa loo xilsaaray dadkaas oo kaleeto waa guddi oo arrinkaasi lagu amaaneeyey waa dad mas-uuliyiin ah oo arrinkaas loo dhiibi karo guddi ayay noqonaysaa committee tusaale oo kaleeto waxaad dhihi kartaa the committee are having a meeting in the hall aa dhihi kartaa the committee are having a meeting in the hall guddiga waxay ku shirayaan hoolka ayaa dhihi kartaa guddiga waxay ku shirayaan ama waxay shir ku qabaan hoolka ayaa dhihi kartaa okay number 10 maxaa inoogu xusan constitution waxay noqonaysaa dastuur ayuu noqonayaa ama sharci ayaa dhihi kartaa haddaa rabtid dastuur ayaa badanaa laakiin loo adeegsadaa constitution waa sharciga ama dastuurka ugu weyn ee dalka la raacayo kaleeto oo dowlad ay dejiso kaleeto oo shacabka iyo qof kasto inuu raaco laga rabo muslim iyo gaal wuxuu doonaa inay raacaan laga rabaa constitution wuxuu noqonayaa sharci ayuu noqonayaa constitution sharci ayuu noqonayaa waxaa dhihi kartaa the government is reviewing the constitution the government is reviewing the constitution dowladda waxay dib u eegaysaa oo kaleeto waxaa dhihi kartaa dowladda waxay dib u eegaysaa dastuurka ay dib u eegaysaa review waxaa waaye dib u eegis ing bisaa lagu daray reviewing ayaa laga dhigay waxaa dhihi kartaa the government is reviewing the constitution dowladda waxay dib u eegaysaa dastuurka ay dib u eegaysaa okay number 11 maxaa inoogu xusan council waxay noqonaysaa golaha ama golo noqonaysaa ama gol ayaa la dhihi karaa golaha ayay noqonaysaa waa dad oo go-aanka sameeyo oo haddana la tala bixiyo waa dad oo go-aan sameeyo go-aan soo jeediyo oo go-aankooda la qaata lagu dhaqaaqo oo dhanka dowladda markii laga hadlayo oo haddana la taliyaal ah oo madaxdii ayay la talinayaan dadkaasi waa dad oo council la taliyaasha council waa la taliyaal ama golaha ee la taliyaasha ay noqon kartaa council waa la taliyaal waxaa dhihi kartaa oo kaleeto today our council is sick maanta la taliyaheena ama go-aamiyaheena wuu xanuunsan yahay today our council is sick aa dhihi kartaa our councilor adaarta dhihi kartaa our council is sick aa dhihi kartaa maanta golaheena ama la taliyaheena waa uu xanuunsan yahay okay number 12 waxaa inoogu xusan commission ayadana guddiga ayay noqonaysaa markii hore guddi ay ahayd hadda guddiga ayay noqonaysaa commission mid waxaa jirtaa oo ah ribo wax meel kuu dul saaran lacag meel kuu dul saaran kaleeto noqonaysaa jirtaa laakiin middan maxaa waaye an official group created to manage a task waa dad oo group oo koox ah oo la sameeyey oo loogu talagalay in shaqo ay qabtaan shaqo ay u gaar ah oo loo dhiibo inay qabtaan waa guddi marka shaqadaas waxaa u xil saaran guddi hebel oo kaleeto marka lagu dhahayo kaleeto saasoo kaleeto ay noqon kartaa that work is appointed for those commissioners camal aa dhihi kartaa that work is appointed for those commissioners aa dhihi kartaa guddigaas ayaa loo xisaabay ama the commission is appointed and the commission is given a new work aa dhihi kartaa the commission is given a new work guddiga waxaa la siiyey ama loo doortay ama la siiyeyba shaqo cusub aa dhihi kartaa the commission is given a new work oo kaleeto aa dhihi kartaa guddiga waxaa la siiyey shaqo cusub ayaa loo dhiibay okay number 13 maxaa inoogu xusan number 13 province ayaa inoogu xusan province waxay noqonaysaa gobol province waa meel gobol ah province hadoo kaleeto haddii lagu dhaho kaleeto north eastern province gobolka waqooyi bari ay noqon kartaa north eastern province haddii lagu dhaho gobolka waqooyi bari province waa gobol ayay noqonaysaa province waa gobol waa meel adi gobol ah oo ka tirsan dalka ka
tirsan waaye dalka unbay ka mid tahay laakiin waa gobol maamul goboleed ayaga ismaamulo so waa province hadoo kaleeto waxaa dhihi kartaa the northeastern province is a very big province gobolka northeastern ama gobolka waqooyi bari waa gobol aad u weyn oo kaleeto dhihi kartaa northeastern province is a very big province okay number 14 maxaa inoo xusan district ayaa inoogu xusan number 14 district maxay noqonaysaa degmo maadaama province gobol uu noqday district waxay noqonaysaa degmo ayay noqonaysaa waxay ka yar tahay micnaha gobolka ayay ka tahay gobolka ayaa ka weyn gobolka aad u weyn yahay degmadana waa meel yar oo gobolka hoos tagto so waxaa dhihi kartaa our district is very small when compared to our province degmadeena aad ay u yartahay markii loo barbar dhigo gobolka anaga aan ku noolahay degmadan kaga sii noolahay yacni aan isku barbar dhigaan our district is very small when compared to our province aa dhihi kartaa degmadeena aad ay u yartahay markii loo barbar dhigo gobolkeena okay number 15 maxaa inoogu xusan division ayaa inoogu xusan division waa qayb yaroo adig oo meel ka tirsan sida meel oo urur ah ayay ka tirsan tahay ama meel unbay ka tirsan tahay waa qayb yar division oo kale division waa wax aad u yar wax degmo kasii yar uu noqon karaa oo degmada ka tirsan noqon karaa ama wax oo dowladda meel gaar ah ooga tirsan noqon kartaa ama ciidan yar oo ka tirsan oo ciidanka aadka u weyn oo dowladda ka tirsan noqon karaa adig qayb ka mid ah waa qayb yar waxay ka mid tahay waxa qaybta aadka u weyn ay ka mid tahay ururka wuxuu doonaa urur isku imaada ay ka mid tahay waa qayb yar division aa dhihi kartaa is a small division waa qayb yar among waxaa dhihi kartaa government waa qayb yar oo ka tirsan dowladeena they are small division iyaga waa qayb yar among oo ka tirsan our government ee dowladeena ayaa dhihi kartaa marka division waa qayb division waxay noqonaysaa qayb ayay noqonaysaa